annaga ciidan aan nahay wixii aan qaban karnay waa qabanay saambaagaas muxuu ahaay wax tamarteeda aan qaban karnay aan ku caawinay saambaagna oo jeedan wax ma taliyaha ururka afraad ee guutada 16aad ee Commandos-ka Danab iyo taliyaha ururka 64aad guutada 7aad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeeray buundadan ku taala deegaanka Warmaxan oo ay gooyeen biyo baxda ku dhufatay deegaano hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Buundadan go'day ayaa halbowlo u ah isku socodka gaadiidka u kala goosha magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Kormeerka kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ururka afraad ee guutada 16aad ee Commandos-ka Danab Maxamed Saleebaan isagoo sheegay in ciidan ahaan ay qabteen tabartoodii balse ay ka weynaatay oo u baahan tahay in si degdeg ah loo soo gaaro. waxaa ka dhacay biyo baxo wadadii waxaa gooday oo isku xidhisay Walaweyn iyo meesha la dhahay Warmaxan meesha ay ka go'an tahay waxa weeye Warmaxan wadadii labadii isbuuc ee la soo dhaafay wax bini aadan oo maray ma jirto sida ay u jeedaan muuqaalka waxay noqotay meel kala go'day waxaa ka shaqeynaya doomam hadda qofka Walaweyn degan doonuu ka soo raacaya Warmaxan qofka Warmaxan deganna doonuu ka soo raacaya inta shaqada annaga ciidan aan nahay wixii aan qaban karnay waa qabanay saambaagaas muxuu ahaay wax tamarteeda aan qaban karnay aan ku caawinay saambaagna oo jeedan wax ma samayn karo marka dadka ay qusayso oo Ilaahay wax siiyay ama ganacsatada ama hukuumadda ama maamulka koonfur galbeed ama dawladda dhexe noqoto qof walaalo qofkii muxuu ahaay tamar ku dhaama meeshaan waxay u baahan tahay wax qabad in laga caawiyo bini aadankan dadkii dhammaan waa aragtaan si ay u jeedaan way tuman yihiin hooyo iyo cunugeedii iswaayay ganacsiga istaagay laba isbuuc waxba ma soo marin. dhinaca kale isna waxaa goobta ka hadlay taliyaha ururka 64aad guutada 7aad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Cabdullaahi Maxamed ayaa isna sheegay in arrintan ay halis ku tahay nolosha dadka ku dhaqan deegaanadan isla markaana si degdeg ah u soo gaaraan dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba bulshada Soomaaliyeed ee alla wax siiyay. ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa ummadda shacabka ee dhiban ee qab xanuunsan qab waayeela islaan u nashay meel aan la martiyo aan lahayn oo tuulooyinka u dhawaay Warmaxan meesha hadda wadada ka go'an tahay u dhawo 10 kiiloomitir u jira kiishkii bariiska ahayo $20 maray maanta $60 maraa hadduu sii socdana waa ka sii daranta meeshii ka sii dheerna warkeeda haba sheegay marka dawladda hay'adaha maamulada gobolada heer federaal ilaa heer maamuleed waxaan ka codsanaynaa in alaalay intay tabartooda iyo intay qaylo gaarsiin karaan inay qaylo gaarsiiyaan annagu intii tabartaan waa keennay wixii tabartaanna waa keenaynaa hadda meeshaan u nimid inaan ka qayb qaadano xanuunka yaala alaalay wixii tabar ka geysan karno iyo wixii aan ka qaban karno. Shilaawa Cabdillaahi Cabdiraxmaan idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose.